su'aalo yar oo khaldan oo ka ordayaan sheegay wadanka ka timi oo xagga horinta ku soo fadhiistay shaqo ku jira bibariga hore saas ma ahaan jirin furiya waxaas qof badan ma arki jirin marka shilkuna qofku xilliga ilaahay qorma dhacda laakiin sabab bandeen 3 jeer baan malaynayaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxaan deganahay magaalada Erkalas laakiin waxaan ka shaqeeyaa magaalada Mönchengladbach waxaan ahay busfaara company-ga leedo NFV ishtaal Mönchengladbach wadanka Jarmalka waxaan soo galay 2014 sanadkii bishiisii shanaad maanayaa 7 sano ku dhawaad horta runtii qof walba meesha uu degan yahay ama Yurub haato ama wadankii haato waxa fiican haduu wax qabsan karayo inuu qabsado ama ku fakaro sidoo horumar u sameyn lahaa marka waqtigan aan soo galay anagu wadankan aad buu adkaa oo qaxootiga aad bay ugu yaraahay dadka inuu qaato cadaadis badan baa naga yimi walaalada qofka faraad leedahay ama wadan kale oo Yurub soo martay ama xitaa kuwii naga sii horeeyay sharciyada lagu geejiyay marka taasina waxay sababtay in nolosha adkaato daadaantaasi nagami hor istaageen inaan wadanka joogno dad badan baa wadamada kale iska tagay haddana waan ku sii nagaanay si aan mataqaanaa bal aanu rajo uga sii qabno in wixii Ilaahay qoray ay dhacaan marka alxamdulillah wadanka isagoo shaqooyinku adkaa oo aan qofka shaqo loo ogolayn ayaa 2015 kale qofkii Jarmalka jooga u garanaya habarta wadanka haysata Angela Merkel ay tiri qofku soo bilaa sharciyan uu shaqaysan karaya kii haystaan horabada hoos shaqaysto oo wax la yiraahdo integration bay dadku furtay ma yeelno suurta galeyn inaan luqadda barano sababtoo ah sharci ma lahayn oo waxa la yiraahdo qof hadduu sharci leeyahay dawladdu ka bixinaysi marka laakiin shaqana loo ogolaaday markii dambe ayadana waxbarasho dib laga ogolaaday marka laakiin anagoo aanan maxay ii sheegay shaqo bilaabin baan isku daynay inaan dadka wadanka u dhashay dhaxgalo la hadlo wixii aan ka baran karo ka barto si marka wuxuu qofka bilaadanka ay aan luqadda wax uga fahmo oo markaan luqadda ka bacdi dadka ka bartay waxaan ay suurta gashay inaan marka luqadda galo tan iskuul baan tagay luqadda aan bartay dan ka bacdi waa shaqo galay runtii markii aan ka soo shaqeeyay kompaniyada ku soo sheegay magacyadooda waxa arkay inay tahay shaqo adag oo qofku wax la dhaho Soomaalidu laaga hilve oo ay iska tahay xamaal dad badan oo laakiin yar dhib badan oo adag tahay qofku xilli hore kacayo adigu dawaa shaqo iska yar adag waa iska xamaali marka way adag tahay marka waxa suurtameeyay Ausbildung maxay beruf kraftfahrer weeye waa xirfad qofku baranayo oo ku shaqaysto marka xirfadii markaan sameeyay ka bacdi ayaan company-gan maxay ii sheeg cod soo dirsaday ka bacdi waxa lagu wali tixgeliyay runtii anigu wali waa maxay waqtigaas muxuu ahaa bilaa sharci ahaa tan la yaab ku noqotay macalkii dawladda haystay marka wax yiraahdaa markiiba sidee adiga aan sharci lahayn kugu suurta gashay inaad shtaadka magaalada shaqo ka bilowdo alxamdulillah marka isla markiiba sharci degdeg bay markiiba ay siiyeen halkii markii hore iga adkeen jireen ka bacdi waxaan ku sameeyay magaalada dhexdeeda wax la yiraahdo inaad kala barto dariiqeeda oo lix bilood damba Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka wax rabaa inaad la wadaago macluumaad ku saabsan basaska iyo treenada oo la xanibay muddo gaaraysa 2 isbuuc oo aanan tigriyo wax dambe aanan iibidin markaas bal waad la socodsiinaysaa shaqooyinka ay u socoto hadii Ilaahay ka dhigo baskan saaka wado imika 2 cisho wasaas oo ahaa sababtoo ah xagga marka soo gasho ad arkaysaa labada kursi ee faarka ka dambeeya darawalka la maxay ii sheeg lama geli karo wax tigadana lama iibsan karo marka wallahi arinku xalku waa adag yahay nimankan waa lagu soo batay Ilaahay horta hanaga qabta aniga wixii islaamaba caadiyan imika maanta halkaas aan joogaa waa Borussia Park garoonka kubadda ciyaarta Mönchengladbach runtii wuxuu ahaan jiray baskani ama baska Lilian kana wada kugu mashquulka badan la magaalooyinka ay kamid ahaa halkaasna waxa ku taalo wasaaradda caafimaadka
iyo finance amtigi maxay isha wasaaradda cashuuraha marka waxaan u sheegayaa asxaabta saaka ay noo sheegeen in muddo haddii xaalku kasii daro in tareenada magaalooyinka iyo basaska iskaga dhex baxa la joojin doono haddii markaa xaalku sii magaranaysaa jarmalka kusii bato marka hadduu ilaahay ka dhigo insha allah waxaan rajeedayaa inta xanuunsan ilaahay caafimaad siiyo inta kalena ilaahay wix islaamaya soomaaliya ilaahay naga badbaadiyo wax tigaro daba la iibinaya ma jirto dad barlin qabanaysa haddaad yustari qabanaysaba sidaa ha loola socdo waxaa igu la yaab badnaa runtii tusaale ahaan oo kale markaan magaalooyinka dhexdeeda ka shaqeynaa waa iska caadi mar baa jirta tegayso magaalooyin ka baxsan shtaadka oo sida tuulooyinka yara subaxii marka aad soo 5 subaxnimo ama 6 subaxnimo qof faariq kastiya caadiyan wadankan qofku inuu tigirkaad ka iibinayso inuu salaam kugu soo tumo maalin wanaagsan wax noocaas ah jirta kuma dhaxayaan qaarkood dadka waaweyn waliba dhayarta waa iska caadi lacagta meesha saar kugu saarayaan si ku dhaxayn tigirkiga iibi ama xitaa waxay ku weydiiyaan su'aalo yar oo khaldan oo ka ordayaan maxaa soo habsaantay maxaa 5 daqiiqo dib u soo dhacday waxyaa su'aalo noocaas ay ku weydiinayaan iyo maxay haday ii sheeg wadanka ka timi oo xaq horinta ku soo fadhiistay shaqo ku jira de marka runtii iyo qaarkood oo bila ixtiraam oo marka qaar de saka maaga ku dhahaya de hadad qal yar sameeyso kale tusaalahaan oo kale bilaadan baa tahay shaqada marka cusubto kale dariiqada wadada kale leexan jirtay kale way kugu qaylinayaan marka chance ka faa'iideysadeen qaladka sameysay de marka yaani bibariga hore saas ma ahaan jirin furiya waxaas qof badan ma arki jirin ama qof noocaas ah marka taasna de laakiin iska caadiyo dulqaad wana ku soo baray marka waa inaad qof bus faar haduu yahay guduulta ama wax lagu dhaho duqaad yeesha ama qof haduu sarxaansan yahay haduu cusur yahayba wixii inta ka badan haduu qofku sameeyo khaladana de kulay booliska gumad wacaysan taas waa normal waxay ka mid tahay shaqada marka shilkuna qofku xilligu ilaahay qorba dhacda laakiin sabab bandeen 3 jeer baan mareynaya marka 2 jeerna waa laga khaldana marna la khaladka laha basaskana ka shaqeynaa oo waxa weeye qofku waxa dhahan bas haduu bus faara haysto oo kubaniga u shaqeeyo waxa weeye faraafiliga inuu yahay oo xilka saariya lacag haduu qof xanuunsado hadii shaqaalo ku yaraadaan inuu qofku ka xayn karayo baski laakiin hadda caadiyan tigirkan jooga marka qaybsi tigirada loo jarayo sida loo cancel storien lagu sameeyo waxay dhahaan after yani tigirka xumaaday qof intuu iibsaday soo celiyo kale inaad dib aad mata u xisaabiso runtii niyo haduu qofku doonayo inuu yimaado wax fiican inuu iska joogo oo Europe waxa weeye waska nolosha hadda adkaatay waliba de maalinta ka dambaysa si adkaanaysa runtii marka laga hadlo hadda sharci noqoto iyo hadday noqoto meel kasta laakiin waxa la lahaa inay wadankooda iska joogaan oo iska shaqeystaan halka laakiin qof markuu wadankii joogo runtii de aqoontiisa ku shaqeysan karo qof wadankiisa jooga hadii lacag ay dhacdo yimaado oo hami hayo lacag ay dhacdana waxa kula tali lahaa inuu nolol fiican isku dayo dadka cilmi iyo aqoon bay hayaan in wuxuu wanaagsan laga daydo runtii waxyaalahan doonayo inaan ku sii dardaaro qofka waxa kamid ah been awoodi karayo qofkii maqlaya in niyow qofku bil aadankii haduu wadankaasi waxama jarmalka soo galo noloshiisu way adag tahay inta u horeyso dhan isagoo sharci haystay isagoo sharci lahaynba kuwa sharci haystana waxa uu sii dheer bawrur kale qofku 4 sano 3 sano ka badan buu sharci laan ku noqon karaya in aan isku qafilin qofkaasi yani waa lagu celinayaa ama duldun bad haysataa ama wax loo dhaho axsaan bad haysataa iyo wadka laga saaraya in uu isku dayo in uu runtii uu integration sameeyo oo dadka dhex galo imika dadkan kale Afrikaanka ama Carabta waxay Carabta yaan dhixi badankoodii ama Suuriyaanka kale qaarkood baa sharciyada loo diidaa haddana way shaqeystaan xifrad ay sameeyaan luqad ay bartaan ama de ausbildung bay isku tuuraan hadhowna halkaas wax xifradaas ay ka bartaan haddana runtii ay naftooda ku anfacaan marka dawladuna waxay ku qasbantay qofku hadduu xifrad sameeyo oo aan dambina wadanka ka galin in runtii inta doonta qaato sharcigiisa mar maalin ka mid ah la say doono sababtoo oo ku noqon karto qof uu dadaalay marka waxa kula tali lahaa kii sharci haystaana inuu luqada barto marka koowaad halku degayna iska deganaado
iskuna dayo inuu ixtiraafo way Soomaalidu badan ka xorada magaalaha laga furay shaqo ama noocaasa qofka ka soo horeeyay ku dayana uu guuraya markaas jaanisna markaa uma saamaxaysa inuu dadkii dhex galo meel dee Soomaali ku badan inuu qof raadsaday badanka taasna waxay ku sababsan markaa qofka inuu dib u dhac ku keento waxa kula talaa qof walba inuu halkiisa ku dadaalo oo wuxuu qabsan karayo qabto kala dad badan wax sameeyay way jiraan oo shaqooyin fiican haysta iyo qaar kood oo xirfado fiican sameeyay wadankan kuwana waan hambalyeedana insha Allah inta dadka la xalayna dadaaladu تمام كديدي qaar baa soo shaxaaday wadankii runtii waxay leedahay dee qofku markuu shtaadka u shaqeeyo waxay ku fiican tahay cashuurta kale shtooyaha waxay dhaxaan barba laga deenaya saano kale fashi shurunka gaariga kale qof hadduu 70 bixinayo euro bishii waxa laga yaabaa inuu 40 ama 35 bixiyo kafeega kale ama sida cuntooyinka roodhida quraacda subaxii kale runtii taasina waxay ku keenaysaa in ma garanaysa kaarka shaqada tusto oo ay roodhisiyeed lagu sameeyo oo marka waxna weydiinaysaa ma joogay bas deegaate والله سيف يا عم وضمنا